mudaharaad ballaaran oo lagaga soo horjeedo xarunta kalluumaysiga ee berbera oo sida la sheegay laga iibiyay in xarbi iyo ganacsade ajaanib ah oo carab ah taasi oo ay dadweyne aad u tiro badan ay ku soo mareen wadooyinka waaweyn ee berbera waxaana mudaharaadkaasi ka qayb qaadanayay ardayda dugsiyada sare iyo shicib aad u tiro badan waxaana dadkaasi ay ciidamada SBU-da iyo RRU-da loo adeegsaday kadibna la kala dareeriyay waxaana intaasi ka bacdi mudaharaadkaasi ka hadlay xisbiga mucaaradka ah ee berbera Roode Axmed Yaasiin maantay in ay berberi tahay meel ay xukuumadda siilan ya caburiso waxaana kamid ah hadaladeedii sida waxa aan ka hadlayaa anoo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka oo cid waxaan ka hadlayaa marxalado badan oo ka taagan berbera maanta oo ay kamid tahay in maalin walba ay berbera noqoto meel la yiraahdo qof soo eego meel ka banaan berbera maanta waxa ay marxaladii ugu xumayd ee dagaal iyo dil iyo rabshadba ay ka dhici gaadhay ka dhacday nagfiista waxa la soo siiyay rag waa la iibiyay waxa ay noqotay in dadkii markii hore nagfiishan ilaasan jiray ilaa xilliga waa la raran lahaaye ilaalinayay ee wax ku lahaa inta lala hadli waayo markii ay wax weydiiyaan in la garaaco oo la xidho oo saldhigyada lagu guro in golaha deegaanka ee berbera aan la soo marin oo ka mas'uula meelaha maxay ahayd tolay leh diplomatka ee degmada maxay tolay berbera ku taala maanta waxa dhacay mudaharaad ay dadku kacdoon iyada oo la caburiyay dadka reer berbera oo ay khatiyaan taagan yihiin xaqooda ka yimid annaga xusbiyadu waxaan ku warhelay iyada oo ay mudaharaadkaasi ka socdo magaalada markii dambana ardaydii iyo dadkii iyo dumarkii iyo dadkii jilicsanaa ee dhulkoodii lala wareegayay waxa weeyaan waxa lala soo baxay xabad waa la laayay waxa weeyaan xafiiska bara saabka ciidamada laga soo daayay booliiska eriyaday rabshad baa ka dhacday waxaan u sheegaynaa dadweynaha Soomaaliland iyo reer saaxil iyo qurba joogaba in aanay kacdoonkaasi maanta berbera ka dhacay istaagayno annaguna hormood ka noqonayno maadaama oo dadka lagu abuse garaynayo magaaladana ay noqotay magaalo waqtiga uu siiraay dadka dalka haysta iyo kulmiye in la boobo oo laga boobo dadka hantidoodii iyo laga boobo ilaahi dhaqaalaha Soomaaliland u dhixiyay waxaan leenahay hal arko hal ogaado cidina uga dul qaadanayso horena dhacdooyin hore uga dhacay sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay afayeenka xisbiga mucaaradka ah ee cid waxaan jecelahay laba kelmadood oo aan ka sheego koow goorma golay deegaanka awood u lahaa ay dad reeyada qaateen oo qodob kalabaad oo ah dhacdo maanta dhacday oo dhacdo fool maan jecelahay inay dhacdo laakiin waxa soo wada dheriga kuleelka karka kuleel baa ka keena waa mas'ala khaldan si kasta loo turjumo nin muruqmaal oo maanta ku dagaalamaya muruqa iskayga baan doonaya waa fadeexad qaranka fadeexad ummadda deegaanka fadeexad halaga waantoomo boobka cad ee hatada ummadda inta loo geysto dadkii waliba ilaalinayna lagu tacadeeyo laga tacadeeyo waa digniin dadka reer berbera waxay yaqaan dulqaad waa dulqaataan laakiin hadday dulqaadka dhaafto kacakada balay ma in badan ma soo joogay dalka waxaan leeyahay dadka reer saaxil waa dulqaateen in badan ma dhabar adeegeen waliba xukuumadda ku dhabar adeegeen haddana xisbiga mucaaradka waxaan cadaynaynaa waa ogeydeen wixii ka dhacay baarlamaanka maanta Soomaaliland waa sharci dalkan warqad baa loo soo qoray kalfadhi dhamaaday oo lagu kala hagaagay ayaa maxkamadda sare warqad ku soo qortay ogeydeen waxa ka war haysaan marxalado badan oo ku horiyo dhacay dalka shirkii dowladda qaran waa ogeydeen waa lagu heshiiyay haddana su'aal baa ka dambeysay ah ma ogolin gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah kulmiye xaafidka kulmiye masaga la qowracayay isas waxa adigu hadal ka dambeeyay xawlan qaran ku jiri maayo yoonta subax walba taagan qaranku taaba qaaday waxaan filaynay xukuumadda talada ay sameeyeen halkii dhaafiso laakiin dib u celisay waa nasiib darro dib u noqoshaa ku dhacday qarankan waxaa loo celiyay meel uu soo dhaafay waqti ka dul qaadan mayno mudaharaadkan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo noqnoqonaya xarunta gobolka saaxil ee berbera iyadoo aan la garanayn sababta keentay balse ay tilmaameen in ay sii wadi doonaan mudaharaadkoodan in ay joogtayn doonaanna waa cabdiraxmaan maxamed ciga telefishinka caalamiga ee Royal magaalada berbera.